بسم الله الرحمن الرحيم ومahadsantihiin dhalinyaro iyo waxgaradka iyo aqooyahanka deegaanka aad u mahadsantihiin hiiladiina iyo garab istaagiina iyo soo booqashadiina aad ayaan idinkaga mahad celinayaa runtii waxa dhacay wax hadda aan kaliya igu dhaca maahan dalkii oo dhan ayaa maalin kasta waxaas ku dhacayaan dalkii oo dhan ayaa marxalad khatar ah ku jira oo haadaanka sii dhacaya waxaan ilaahay ka rajaynaynaa ilaahayna ka baryaynaa inuu si haadaanta nooga dhicin waxaan ilaahay ka baryaynaa in aqligu taliyo oo kuwa laga kari la'yahay war u kaadiya war dalka maxaan ku waa la wada leeyahay war doonta hanala quusina kuwa laga kari la'yahay in ilaahay oo wax garadsiiyo ayaan rajaynaynaa haddii wax ay gara waayaan waa lagu qasban yahay in gacanta la qabto marka akhyaari waa mahadsantihiin waxa hadda shakhsi ma ahan maalin kasta mas'uuliyiinta iyo siyaasiyiinta dadka oo dhan ayaa wadooyinkii magaalada maxaan ku yiraahdaa sida ku dhacaysa talo miir qabtaan u baahannahay oo aan degdeg ahayn oo aan caadifad ku dhisnayn adinka doorkiina waa gudateen waana guda doontaan waxaana idinkaga mahad celinaa runtii sida degdega ee aad sidaan isugu soo abaabusheen boqolaalka qof ah sida degdega ee aad u muujinaysaan dareenkiina dadka inaad wacyi gelisaan adinka aqooyahankiisi ah dhalinyaradiisa adinka ah dadka inaad wacyi gelisaan waxna aan la iska dumin dulmilowgana runta loo sheego oo inuusan wax dulmi karin loo sheego aad ay muhiim u tahay waxaan rajaynayaa inaad talo badan jirta shiraraan ku jirnay ilaa maanta waxaani wax hadda ka bilowdo maahan General Tuur wax ka bilowdo maahan aniga waa nabad qabaa askarteydina waa nabad qabtaa sidaan xalay sheegana sida wax u dhaceen xalay ayaan sheegay waana la fahmi karaa war badan oo aan sheegi lahaa iyo wax badan oo aan sheegi lahaana waxa weeyaan howlaha socota marka inaan ka hor dhac mar rabo kaliya laakiin waxaan rabaa inaan idin mahad celiyo wax badan jira waxa isugaya saraakiishii qaranka isugaysa oo hadda meeshan ku shirsanoon idinkaga soo hormaray waxa isu maaragtay hadda shir kalan ka soo baxnay waxaan rabaa idinkana doorkiina inaad qaadataan deganaantu muhiim waaye laakiin dulmi inaan la ogolaan maalin kastaba qof muhiim ah ayaa la bahdilayaa maalin kastaba daadaansi iyo dad yaryaroo oo maaragtaa dhalinyaro oo beledkan wadankan wixii laga soo maray aan ogeyn ayaa laga adeejinayaa dadka karaamada lahaa xushmada lahaa suuragal ma ahan mas'uuliyaddu waa ka weynaanaya dadkaas ilmaha dhalinyarada ee la soo diray mas'uuliyaddu waa ka weynaanaya dadkii soo diray ee isgoosyada soo dhoobay ee laga mari la'yahay dadkii sidaan u karaamadi isku day malaha lagula soo dardaarma dadkii soo karaamadila dadkii maxaan ku iraahdaa soo qiimo tira soo waxa loo madul qaadan karo absolutely mana loo dul qaadan doono qolo kastaba kaalin ay leedahay yaanan idinku dheereen shir ayaa idin socday shirkiina wata howlihiina wata aad ayaan kaga mahad celinaa booqashadiina boqolkiiba